عبد الرحمن دي أنو قدري ogeydeen madaxda qaranku heer federaal iyo heer maamul goboleedyo isku soo afgarteen kulankii labaad ee Dhuusamareeb ayaanu ka soo unkanay guddigaas waad ogeydeen oo dhawaan watii golaha wasiiradan la marsiiyay ra'iisul wasaaraha kusamaahina uu soo saaray muddo hadda 4 cisho waxaan joognay magaalada Muqdisho halkaas ayaanu shirar hordhaca oo aanu kaga sii baarandegayna hawsha ka baarandegida iyo tala ka bixinta arrimaha doorashooyinka aan u fadhinay qorshayaal hordhaca ayaanu sii samaysanaysaanu hawsha u gulayno insha Allah ta'ala inta aanan safrin horta waxaanu la sii kulanay madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha galmudug gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa bannaan waxaanu la kulmi doonaa haddii rabbi nagu simo asxaabta iyo xisbiyada iyo ururada bulshada rayidka iyo aqoon-yahanada markaa ka bacdina waxaan noo qorshaysan inaanu u kicitino xagga iyo beledka Dhuusamareeb oo shirkii Dhuusamareeb 3 uu ka furmi doono halkaas ay hawsha noo maraysaa waxaad sheegtay inaad qorshayaal iyo mabaadi dejisateen bal qorshayaashaasi maxay yihiin si dadku u fahmaan wallahi sidii aragtiyaha kala duwan ee jira la isugu ablaableyn lahaa la isugu keeni lahaa doodaha sharciyadeed iyo dastuuriga jira iyo kuwa siyaasadeed ee wadar ogolka sidii madaxweynaha iyo mas'uuliyiintii kaleba ay ka sheegeen shirkii Dhuusamareeb sidii la isugu keeni lahaa loona heli lahaa xanaan doorasho oo la wada ogol yahay inahaas ay daaran tahay shaqada iyadu arrimahaasna qorshayaal hordhaca ka sii samaysanay wixii kalena waxaanu aad ugu sii kurgeli doonaa marka aanu tagno magaalada Dhuusamareeb waxa wararku nagu soo gaarayaan inaan Jubbaland iyo Puntland kulamadiina qayb ka ahayn cidii ay u soo magacawdeen ama cidii ku metel lahayd marka hadii la idinka kala maqan yahay waxa wadaan Suubiyo Culdaanshay ma waa run waa naga maqan yihiin Jubbaland iyo labadii xubnood ee Jubbaland iyo Puntland waxaanu soo ku rajan weynahay bal inay xagga noogu iman doonaan biyo Culdaanshay ma aha waa daraal aanu sii bilownay iyana fahamkooda iyo fikirkooda iyo oraahdooda markii noo yimaadaan bay nagu dari doonaan waxaanuna isla sii afgaranay inaanu waxyaabahaanu hadda isla meel dhignaa ay ahaadaan qorshayaal go'aan ka qaadashadooda iyo ku hawlgelidoodana marka la isu soo dhamaado aanu halka ay Dhuusamareeb kaga wada shaqeyn doono shirka waxaa laga filayaa in dhinacyadii kala aragtida duwana haday maamulada tahay haday dawladda federaalka tahay haday ciidaha ay saameeynayso oo dhan ay tahay ay ka soo baxdo wax heshiis lagu wada yahay hadiiba imika sida aad sheegtay laba maamul maqan yihiin sawtaasi walaa intiisa leegma oo ma adkaanaysa in la filo in wax la isku raacsan yahay ka soo baxo wixiina laba cashaaba hadhay imika wallahi arrimahan siyaasaddu arrimaha hawl yar ma aha waxaanu soo ku rajo weynahay marka la isu yimaado inay mas'uuliyiintu dhab iman doonaan arrimaha farsamada halka lagu turxan bixin doono wixii siyaasadeed jirtana halka lagu xalin doono hadda waa khamiis waxay naga xigtaa 15kii bisha berri oo jimca iyo sabtida ay bishu tahay 15 marka waxaad leedahay shirkii baaqan maayo oo maalinta sabtida Dhuusamareeb baa la isugu imanayaa oo shirkii loogu magac daray Dhuusamareeb 3 uu ka dhacayaa ku talagalku waa sida saasan anagu farsamo ahaan ku tala jirnaa bisha 15keeda inuu shirku ka furmo magaalada Dhuusamareeb imika Muqdisho aad joogtaan kulamadan iyo hawlahan aad sheegaysaa dadka la kulmaysaan qaar la kulmi doontaan dadka qaar baa warkaba in hawlo bilow ay ula muuqdaanba shirkuna halkuu ka dhacay Dhuusamareeb bay ahayd goorma Muqdisho ka baxaysaan oo Dhuusamareeb aadaysaan anagu ayamahan soo socda waa baxayna bisha 15keeda Dhuusamareeb baan joognaa insha Allah ta'ala laakiin ayaama ma hadhin laba casha hadhay maalintii shirku qabsoomayay iyo berri iyo maanta marka labadan maalmood goorma baxaysaan waxaanu ku tala jirnaa inaanu bisha 15keeda joogno magaalada Dhuusamareeb marka shacabka Soomaaliyeed ee haystay ballanqaadka 15ka bisha aad kulmi doontaan oo shirka Dhuusamareeb ka dhici doona waxaad u ballanqaadaysaan shirkaas uu san baaqan doonin oo sabtida Dhuusamareeb la wada fadhiyo ku talagalkaygu waa sida laakiin ku talagalkiina halka shaki baa ka muuqda ma walaac baa jira guud aad isleedihiin hawluhu waa isbedeli karaan ma walaac naguma jira Ilaahay baa og wixii iman doona annaga hadda inta aan ku tala jirnaa waa sida Cabdi Raxmaan si aan hawlo kale xaga la ka socday